KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afari musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay aryaadaha heer kalamaanow waxaan maqli jira muggi soomaalida ahayd hadda waa layska hoogay dadkuna udadahay miya oo damiir lahaayaan hadda damiirka dhimaday waagaas duurjoogta waa iska buuxday haddana hal la arki maayo war allahu naxariista cabdilla raaga wuxuu yidhi aygu sheegi Soomaali waa yeel balaakiin wataa idinka buuxaane aryaadaha waxaan sheegi lahaay oo dhammaad iga dhumi rabtiina hallay dhegaysan riirane haddaan u baaqin waan u dhilahayn dhalinyara haddaan la helin waan u waxaa laysku dhaarsaday kansirteenna dhiidiyo Soomaali waxu dhimee dhegtaa dhiigga loo dari war haddaad maqli jirta cabdillow dhegtaa dhiigga loo dari maantay taagan tahay oon kala sooc lahayn waxaana noo la rabo in intaas layska difaaco dhalinyaro iyo dad dhiirano wax iska celiya in la helo maahino war gaylo ab weerti masaajidkana ka aruureeynay jarnay dhalinyarada sii sheegasaa dhibaatada ninka qoyti aroodani waxaan maqli jiray bulsho dabta abbilata abbarorata isku uur manahay arooda war anigu waxaan maqli jiray ay aamina tusbax aniga waxaan maqli jiray geblay shimbir iyo gariira isgaadaayo haddana gaadgaadkiyaa lagu socdo anigu waxaan maqli jiray ninkii seexdaa sicidibi dhalay anna waxaan maqli jiray nin sacmaalaa seexa waaye sagaareestiyo sabool ari yarisow ku nool yahay war anina mayba deegi jiray fidhi fuud masheenaw fuudkii sheenoona ma firfiraw hortamaday isaaqow ma leegtay mugaadna leedaha dhagoolayal maad noo malaysay warnamada war ma haysaane masiibadii ekis kontarool ka dhacday waa tii laysku tuurtuuray waa tii jornaal turkiga ka soo baxaa qoray imaaraadka carabta ka dambeeyey hay-adda nabad sugidda qarankuna soo saartay war kooban oo ah waddan shisheeyaa ka dambeeyey shabaab oo aad uga carooday shaqaday qabteen in lagu murmo ayaa shafka u dhigtay ununkaa shacabka dhintan layna ma dheheen horta warasxees bay ka bixiyeen ilaahayana waafajiyey ma dheheen maya waxay dhaheen wallaahi bilaahi tallaahi waxaan ka naxsannahay muslimiinta afghanistaan iyo muslimiinta iraaq wax lagu yeelayo iyo muslimiinta siiriya lagu barakicinayo iyo muslimiinta falastiin iyo muslimiinta afrikada dhexe iyo muslimiinta yaman xitaa waa ka naxsannahay oo kaali waaba dhex joogaane muslimiinta Soomaaliya inay ka naxaan maxaa u diidayne akhi adi ma ridobi rabtaa rabta ka dhaco raar lagu saarsays wax leesaaro warwarka naga dhexgelinina naga suga cali dheere oo ayaan dhaweydna lahaa waa dhintay sidaan u niri markii dawladdu tiri waa dilnimiya annaan dhihina dad noo shaaraalli aha cali dheero war qof kastaa wakhtigiisuu dhimanayaa warka dhegaysta waa runtaa oo qof kasta waa dhimanaa calise waa nugu daahay war ilaahay qofna ma moogeenna dhegayso cali dheere wuxuu yidhi qaraxaas waxaan la beegsanayna kolonyo turkiya shacabkii meesha ku baabao qaraxu haleelana uma adnaan socon annagu iyo waa shahiidiinu yidhi war haddaan cali dheere ka yeelo gaarigii weynaay xamuulka ahaa ee suuq dhexdiisa lagu qarxiyey ayaa laba ninoo turkiya u wadnay anaaba alqaacida anna haddaan ka yeelo dadkii la qarxiyey iyo midkii qarxiyaba waa wada shahiideen anaaba al-shabaaba calaa kulli xaal cali dheere waxaa ka hadal siiyey warkii nabad sugiddow beeninayey war beenu been ma beenisee nin qabiir milatari oo xala xuseen wareysanayo wuxuu yidhi shabaab qaraxyada ay fuliyaan ayaga laftiikooda waxba ku ogeen cidda ka dambayso adeegayaala sababtoo ah ajaaniib baa ku dhex jirta waddamo shisheeye u shaqeeya oo ay u maleeyaan shabaab ayaga la mida aryaadaha war ma haysiina madaxweynihii hore cabdiqaasim salaad xasan ma xisbiyow samaystay carabtu waa walaalaheen miyuu yidhi maya almuslim aqul muslima eri dadka ilaahay ha u noqdaana miyaa siirayne anigu cabdiqaasim waxaan ku xasuustaa eelna uma qodna cidna uma maqna aryaadaha warka iga dhex gelinay madaxweyne cabdiqaasim wuxuu yidhi cadowgan dadka layhaayo ummadoo dhan uhow midowdo hana leeska dhaxsho sheelo leesuma harmiidshee warnamada war ma haysiine dalka weli dad baa nool qaar damiir laha jira isbitaal bareefadoo gaar loo leeyaoo kalkaal la yidhaahdo waxay sameeyeen maamulka iyo dhakhaatiirtuba dadka qaraxyada ku waxyeelooba inay lacag la'aan ku daaweeyaan qaraxii u dambeeyey ekis kontaroolna dadkii la geeyey hal shilin lama weydii waxay
waxay daaweyn kareen waa daaweeyeen kalkaal ajir iyo xasanaad allah ka siiyo darumo way soo marto dabiib bay u baahan tahay yeelana eebago isbitaalka kalkaal waa dadaalay hadduusan dadka lacag ka qaadin ee isbitaallada kale idinkuna ku daydha warnamiya mayba dheegi jiray wariiri intii walhadlaayo isu wereeriyee waa dheegi jiri fanaankii biikay haay maalin dhoaytimadi garahgeekis kontrolni war soomaalida ka garirtii ha ku weeri hatida geeka mayleya okiyaalaagaaraayinka jiray soomaaliya iraad lahaada hatika bacdina ma eray fanaan soomaaliyeeda ah ooba soomaalileen kuweelle warnamada biniaadanku waa qaldama waana ka noqdaa qofku qaladka biikay wuxuu yidhi siyaasadda iyo fankaa isaga kay darsamay oo kiyaala cagaaran baana igu jiray oo been ii qurxiyey maradaana iga dhacday dadka soomaaliyeed raalli hayga noqdeen gaar ahaan reer muqdisho raalli hayga noqdeen waana imaanayaa muqdisho ay loof muqdisho ku soo dhameeyey warkiisii marka anigu waxaan qabaa qofkii qaldamay oo ka soo noqda in laga aqbalo alla ilaah aniguna waxaan qabaa kaadi badane waa loo gogol badiyaa gabadha hadda gor waxay tiri aniguba aqlaan leeyoo lay ajari maayo marka wiilka yidhi oo kiyaala cagaarana iigu jiray sow haddana biri ma gasha doono ambaraynaga shibda qad ka cagaaray muqdisho ku soo naqa maaye waxaan idin leeyahay asmaa kulmiye burhaan diini waa tisbiikay heesihiisa mamnuucaye hadda sanseeda haddiisii waa ka soo noqday waran walba burhaan diini shakhsiyadiisa ka hadli mayna dhegaystayaasha raadiyo kulmiye u hadlayey warnamaya waxaa la yidhi kaneecadu sanad kastaa waxay dishaa 755,000 oo qof libaaxuna 100 qof aryaadaha kaneecadu hadday 700,000 oo qof disho sanadkii libaaxuna 100 qof dilo fasirkeeraan idiin haya inta kaneeca disha iyo inta shabaab dilo waa isla mid inta libaax dila iyo inta ciidanka dawladdu dilana waa isla mid warwar mahaysiine ayaantan madaxweyne farmaajo taleefonaa wareeriyey war maqaltigiis baa ku xawilan ila wadaad miyaa lagu soo wacay war garaabadiisa fadlan ana waa handiro hayta kaali oo kaali madaxweynuhuna taleefon muu leeyahayne war tol iyo qaraaba haddaan leeyahay madaxweyne farmaajo taleefonkiisa hallaysiiyo gurigiyaa igu soo dumaye yes mam whatsapp ma isticmaasha ma hadda xeere ii faldhaan kala dhacayna ambaro farmaajo ii geeya bilowday war dad maranaatiina warka naga suga war madaxweynaha ayaantan waxaa soo wacayay madaxweynayaal qaraxii halaaga ahaa uga tacsiyeynayey madaxweynaha markay madaxweynayaal u soo tacsiyeeyeen isaguna shacabka ma gaarsiiyehe war madaxweynuhu asagaa shacabka u tacsiyeeye warka naga sug waxaa kaloo soo wacay madaxweynaha kuuba oo dhakhaatiir kuubaan oo kenya laga soo afduubta raadinaya nagata kuubaanba necbahe siidaxow madaxweynuhu ugu qaban waaye macolaadii 77 ay migista u soo hilisaa weli kugu taagan war abdulisha isma kuuba naasleer unu dhow malniin sheego koran maana dheego korna war waa hurdaysaane madaxweynuhu ruushia iyo etoobiya la saaxiibay maxaad kuuba ka sheegaysaan warna waxaan soo xasuustay garaarka cabdulla raage ee ahaa dowladda ruushya kuubiya daacuflayda amxaariya yuhuudda dariskoodow afartiinna dembiile dalka aanay lahayn dulmiga ugu heshiiyey ku dacdacsi kibrayow madficiinuma diiro sayruukhiinuma duuro kaarihiinnu dibnoyo horay haw durka waayo dekadaha dhisateena keligood ha dumaano raadeelkiinnu digniintiyo sooma sheega dareen waadidaadku gurguurtiyo boor dabayla afuufiya dayal herka hayaamiya meerjuudan ka dilaacay rabbigay dukun daakun iyo dambas haydan ka yeel abdulla raage ilaahay naxariisada habaar kuleel badanaya haaho abwaan mustafa sheekh cilmiba wuxuu yidhi ilaahayow dadkooda beera yaacday ka yeel oo ilaahayow dadkeenna aad dul jooga ka yeel ahya maskaxda laga baaroobay warwar maysiina waxaa la yidhi xabsiga dhexe maxaabiisha ka fakatay xaggay mareen jidadkuba waa xiran yihiine yaama qunfulkiyaa laga ilaabay war ama jaabkalay ka hadaleen baa'igo waa xabsiga dhexa meel laga baxa ma lehe timir lafaa ku jirta arooda wareedha warkaan laga dhexgelinina naga dhegayste taliyihii xabsiga dhexe jenaraal xilsiile waa tii shaqada laga joojiyey hadda maxaabiistaan baxsatay yaa lagula xisaabtama maxaa kugu dhacay kuwii joogaa lagula xisaabtama war ooka taliyihii asluubtoo laandheera ahaay warbuhun shub eraymay shub meero maxaabiistiyaa shubtayasee la yeelaahe asna waa ka daba shuba xawmaha ku qabaa mugga wax kasta inay shishubmaan shubka asaa bilaabay war taliya shub horuuba u yidhi haddii mushaarkeena nala sii dido maxaabiistaan gadanayna taliya shubow shub adaa yidhi ninahay afkiisa laga maxaal siiyo war hadda ka hor jenaraal cabdi ismaaciil wuxuu sii daayay maxaabiis tiro badan oo shabaab ah kadibna waatii inta la soo xiray maxkamaddu xukuntay maantana asoo jenaraal uu joogaa xora marka waxaan waa iska dhammaanaya waa la xalinaya warnimiya war mahaydana baarlamaanka shuruudila hordhiki walaansaye gararafadli
ciidanka sii yaleeri awal miya riyo caana diidi kartay war shuruuc ma ansixin baarlamaanke maanta miisaaniyadda 2020 ay ansixiyeen maalin dhaweynna waxay qarax hoostiisa ku ansixiyeen sharciga doorashooyinka madaxweynaha ayaana caawa labadaba inuu saxiixa la sugayaa warjo ma infaamay doorkii gurto rifawga kulijeed war kuwaani garaadkeenna u gafayaan ilaa iyo hadda waxaan laga heshiin miisaaniyadda 2017 xisaabteedii markaasay haddana ansixinayaan miisaaniyadda 2020 war deyntii horta solnana kama cafin taas bayli warsashoodii ka fayl huday oo beeni maxay tiraysaa boore maan ka imide aryadaha miisaaniyadan ma taqaaniine majaabeesa meel kaaley ka muulax leeyihiin majaabeesa meel kaaley ka muulax leeyihiin warwar mahaysiine gudoomiyaha maxkamadda ciidamada shuute maanta suuratulmaayidda si fiican uu xifdiyey 7 shabaab ah oo maqan iyo kuwo kaloo xiran amiirkii dilalka shabaab ee muqdisho uu ka mid yahay dil toogasho ku wada xukumay naagti faadimo korneel iyo cusubeel ulahayna 15 sano xabsi oo ku xukumay kuwa maqan hadduu xukumayo macalimiinka shabaab ugu sarreeya muxuu xukumi waayey war nimankan maalin kasta qarax iyo buuq iyo siyaasad baa wareerisay sanadku cusub iyo dhalanaya ugu rumahayaan war cusub haye sanad waliba hoodiyo wuxuu adimaleeyahay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kii noo hagaage noqoyahay kii noo hagaage noqoyahay kii noo hagaage noqoyahay war gabadhii oo kala noqdaya ma sanadkii hijrida war waa maxay sanadkan cusub ay ka hadlayaan bisha afraad ama socotay hijriyada war waa miilaadiga nin waalan baa tahay maxay sanad leeyihiin maykii mushaarka lagu qaadanayana dhahaan warnimada waxaa la yidhi nin jacaylku feeraha ka tumay feerna kala daalay oo faruur saciil ruugayo fuursan baan ahay hoobaala hoobaala ay gawma kaga sii waryaa adiga waxaasoo ka ahnada imaan mar dambaan ku